dowladda Itoobiya ayaa mar kale soo jiidatay indhaha Soomaalida kadib markii ay boggeeda ku faafisay safiirada iyo qunsulada u kala fadhiya dalalka dunida ay ku dartay Somaliland iyo Puntland. Arrintan ayaa imanaysa maalin kadib markii dowladda Itoobiya ay daabacday khariidad muujinaysa in Itoobiya iyo Soomaaliya ay hal dal yihiin marka laga reebo Somaliland oo khariidada dal ahaan gooni ahayd. haddaba arrimahaasi iyo waxa qasbay ayaa Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil waxa uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. safiir ma joogaan Garowe iyo Hargeysa hal dawlad baa Soomaaliya leedahay hal safiir baa Soomaaliya u jooga Itoobiya safiirkaasna wuxuu joogaa Xamar isaga ayaana Soomaaliya diblomaadka ka mas'uulka waxaan u maleynayaa dadku waxay isku khaldayaan safiir iyo qunsul safaaraduhu waxay kaloo yeelan karaan qunsuliyado oo u jooga magaalooyinka qaarkood adduunka oo dhan bay ka jirtaa Soomaaliya waa ka jirtaa Soomaaliya nafteeda waxay ku leedahay hadda anigu Jiddan jooga kala hadlaya Jidda waxa jooga qunsuliyad laakiin safaaradeen waxay joogtaa Riyaad magaalada madaxda laakiin mudane safiirro hore iyo wasiirro hore oo uu kamid yahay wasiirkii adigu aad bedeshay arrimaha dibadda Yuusuf Garaad waxay cadeynayaan in arrintan ay ka duwan tahay sida aad sheegayso oo Itoobiya u taqaano saddexda meelood ee Somaliland Puntland iyo Soomaaliya saddex wadan oo kala gaar ah safiirro hore iyo dad hore waxay dhahayaan anigu kama jawaabi karo hadda iyaga dadku way soo dadku iyaga waxay rabaan laakiin anigu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ahay su'aashaadii weydiisay baan kaaga jawaabayaa iyo xogtaan hayo tan ugu dambeysay Itoobiya Soomaaliya hal safiir baa ka jooga xamar buu jooga mudane wasiir dhanka kale Itoobiya waaxdeeda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda waxay website-ka ay barta internetka ku leedahay ku qortay map ay soo gelisay oo Soomaaliya ay ku dartay xuduudka Itoobiya marka laga reebo Somaliland arrinta inkastoo ay markii dambe ka saartay ma idinka ayaa kala hadlay mise sida dadka qaar aaminsan yihiin falcelintii bulshada ka dhalatay ay u arkeen inay soconaynin oo idinku hawshiini waa aad gabteen iyaguna markay khaladkooda arkeen annaguna aan kala hadalay ayay ka saareen idinku khariidada khaldan baa aragteen khariidadaas oo khaladaad badan ku jiray waxaa kamid ahaa dalal badan oo sida South Sudan iyo dalal kale oo dhowr oo Koonfur Afrika jiray ayaa iyagana meesha ka maqnaa marka khariidad qof isaga falaaday bay ahayd wax dawlad mowqifkeed buujinaya ma ahayn dawladda Itoobiya markay aqoonsatay annaguna aanu ku baraarujinayna way ka saareen wadaar bay ka sameeyeen baaritaanna way ka sameeyeen maadaama anagu aanu mudane wasiir sida aad sheegtay haddii aad idinku la hadasheen aad hoos ula hadasheen dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan in aydan si guud oo muuqda oo sida wasaaradda arrimaha dibadda ay ugu dhiiratay inay website-keeda ku soo qorto aydan idinku lagu dhiirin si guud saxaafadda ula hadashaan oo arrinkaas iga fogeysaan taa lafteedu miyaanay muujinayn oo aan idinku hooseyn idinku ahayn hor dadka Soomaaliyeed aad ka hadlaysid ma aqaan kuway yihiin inta qof aad la hadashay imaad sheegin tiradooda imaad sheegin baraha bulshada iyo goobaha lagu wada xiriiro ayaa hadalkoodu si buuxdaaf u yaala oo ay si badan ugu falanqeeyeen arrinta wali meeshaydii baan joogaa waxa tir ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waa badan yihiin 15 milyan waaye hatta hadii golaha maxaliyada bulshadu ma koobi karo hadaa tire ii sheegi kartid annaga ku sheegi karaa tirada og in waxaan aysan macno lahayn oo khalad dhacay oo ahaa Soomaaliya kaliya Xuseen laakiin almuhiim waxa waaye khariidadii hadda meesha kuma jirto waa laga saaray dawladda Itoobiya waxay ka sameysay cududaar isagoo waliba khalad ahaa baaritaanna way sameeyeen mudane sida aanu dadka wax falanqeeyay baraha bulshada ka soo xiganayno arrintan dadku waxay u arkaan waxa macnaha sameynaya inuu yahay in Itoobiya ay maab noocaas kula dhiiratay website-keeda inay soo geliso idinkuna aydan si official uga jawaabin oo aydan saxaafadda la hadal marna way ku sheegay hadana kuugu celinayaa inaan kala hadalay ay ka saareen ka cududaarteen inay yiraahdeen khalad buu ku dhacay warkaas by the way baraha bulshada naftii oo yaala naftooda cududaarkooda iyo inay baaritaan sameeyaan inta baraha bulshada iyadana ugu yaala waxaan se ku sheegayaa annaguna qofkii tahaya waa ka aabisteen ama raalli waa ka tiir Soomaaliya khariidad Itoobiya lagu daro waa qof hadee afkiisu banaan yahay dadku waxay rabaan iska dhigi karaan laakiin adigu waad ogtahay dawlad Soomaaliyeed baa jirta anagu dawlad Soomaaliyeed baan nahay marka Itoobiya kama midnihin mudane inaad idinku hoos ula hadasheen dadku ma ogaan karaan idinku baa ogaan kara arrintaas dadku u joogaan ee la wada og yahay waa inaydan si guud oo saxaafada sida ay yaba ugu dhiiradeen website-kooda soo galiyaan aydan idin uga hadal ma aan ku soo official ayagu ma soo galin waxaan ku yiri waxay dhaheen qalad buu soo galay wayna ka cududaarteen wayna ka saareen annaguna official waa ula hadalay ana hadda ku sheegay waa la hadalay waa u qoray way noo soo jawaabeen cududaar bay ka bixiyeen baaritaan bay sameeyeen waa ka saareen intaas oo dhan bay sameeyeen hadii aad rabtay baraha bulshada inaan waco oo u sheego sidaas dawladuhu kuma shaqeeyaan dalka aad wax diplomatic channels baa jiro dadka lagu hadlo marka
taa waa sameyn وهجاك كاسنا وحوها وسير كأرمها الدبدة الصومالية